bismillaahi raxmaani raxiim. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha inaga mudan meel walba aad naga daawanaysaan. daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka fanka iyo suugaanta oo aad ka daawataan Astaan TV. barnaamijka mid aan ku falanqeyno ama aan ku casuuno fanaaniinteena ku sugan magaalada Muqdisho kuwaas oo qaada heeso kala duwan. toddobaadkan waxaan soo qabanayaa ama halkan ku casuumay fanaanka da'da yar ee codka macaan Dayax Dal Nuurshe. dayax kusoo dhawo barnaamijka fanka iyo suugaanta Astaan TV. waad mahadsantahay walaashay Hani, waan dhawahay waan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee igu casuuntay barnaamijka. waan dhawahay heeso kala duwan iyo sheekooyin aan noloshaada uga hadlayso. waan filayaa daawadayaasha inaad ugu soo talagashay caawa. waa tahay Dayax Dal Nuurshe, horta magacaaga saddexaan bal dadweynaha ogeysi ama u sheeg. magacaygu saddexaan waa Daahir Maxamuud Muuse. Dayax Dal Nuurshena waa magaca markaas dhalinyarada ila baxday. magacaasi asbaabta ugu weyn ee kugu baxday bal wax ma inooga sheegi kartaa? markaan fanka bilaabay horta la baxay markeedii ugu horeysay Daahir Dayax baa la dhihi jiray oo markaan fanaan noqon rabay baa waxaad moodaa in ay ogaayeen inay saan dhici doonto. markaas waxaa lagu yiri Dayax waxba micno ma keenayso in Daahir lagu yiraahdo oo fanaan Daahir la dhaho maanta ma jiro. marka si magac qurux badan oo xitaa saqiirka ugu dhawaaqi kara aad u hesho bal magac wanaagsan keen. markii sida ay dhacday 4 wiil iyo hal gabar baan ahayn group ahayn aad saaxiib u ah. markii dambe mid walba okay saas adeeta waxaan dhahay mid walba magac ha keeno. caawo ha iigu soo diro message ahaan magaca ugu quruxda badan baan qaadan doonaa. wiil Mahad Cabdi Odawaal la dhaho wuxuu ii soo diray Dayax Yare. qof kastoo markaas si caadi ila hadlaya Dayax Yare idii jiro wax macna ma keenayso. wiil kale ee Yaasiin la dhaho hadda Sweden joogo asna wuxuu ii soo qoray Dayax Laki. ayadana wax macna gooniyo ma keenayso aad iyo aad. Faaduma King gabar la dhaho waxay tiri Dayax Cadde. ma Dayax Cadde hooyaday maalin kasta ay dhahdo hooyga badbata. waa tahay wiil Maxamed Amiin la dhaho intaas waxaad raadinaysaa magac saameyn yeesho aad u macaan oo ku qanciya. Maxamed Amiin wiil la yiraahdo Nairobi joogo oo aan saaxiibanahay baa markii dambe wuxuu ii soo qoray Dayax Dal Nuurshe. sababta kugu bixiyeen waxay tahay maadaama maanta waqtigaasna ma jirin fanaaniin badan oo magaalada oo markaas aad looga yaqaan. maadaama ay fanaaniin la yaqaan maanta oo saas ay jirin waxa macquul ah in dalka nuurto yiri soo Dayax Dal Nuurshe ku bixiyay magac sidii igu bixay dalka nuurkiisana waxa ay bixisay gabar walaashay oo hadda fanki iska daysay Fartuun Cumar ayada dalka nuurkiisa ila baxday. waa Dayax Dal Nuurshe oo la nuuriyo la qortay dalka nuurkiisa iyo dunida barkeeda waa hooshii caadiga ahayd. waa mahadsantahay Dayax. markii Daahir lagugu yeeray iyo markii Dayax Dal Nuurshe lagugu yeerayo keebaad jeceshahay mar waliba? horta magaalada markaan joogo Daahir qofkii yiraahdo igu sirmay oo igu qaldoomay soo update garay baa leeyahay. oo markaan xaafadeedii aan ku soo koray dugsiga aan ka soo dhigtay asxaabta aan ku lahaa maalin walba Daahir Dayax la iga yeeri jiray. xitaa markaan tago mararka qaar Dayax isku ma aqaan. Daahir Dayax qofkii yiraahdo ama Daahir oo qofkii yiraahdo iyo Dayax oo qofkii yiraahdo waxay fududaa waxaan u dhaga nuglaha qofkii Daahir oo dhaho inaan u jeesto. okay xaafadaas kaliyaan oo magacaas caan ka yahay. Dayaxow dhanka iyo fanka hadii aan u soo gudo galno fanka qof oo heebad ahaan aad ka qaadatay familkaaga kamid ma jireen? wallaahi familkayga marka la eego ab iyo isarba fanaan uma lihin. aad iyo qofkii ugu horeeyo oo ka soo dhaxqayliyo aniga. caqabad ma kala kulantay markii aad ku soo biiraysay? markii aan ku soo biiray ee ugu horeysay dhanka familka laakiin caqabad kala gooniya maanta ma sheegi karo aan kala kulmay. sheekooyin fara badan way inoo dambeeyaan insha Allah. heesta ugu horeysay barnaamijkeena ayaan jeclaa inaad daawadayaasheena u saaro. waa caasho waxaa sameeyay abwaan aan aad saaxiib u nahay jooga dalka Mareykanka oo la yiraahdo Maxamed Odoon. laxanka waxaa saaray fanaan Khaaliya oo la yiraahdo Cabdicasiis Iskalaaji. muusiga waxaa tuma macalinka kaliya ee waqtigan la jooga ani muusiga iyo tuma Yuusuf Muumin Ibraahim Yuusuf Subxaayo. aad iyo aad gacantaada Allah meeyo codkana waa codkii macana iyo Dayax Dal Nuurshe. waa tahay daawadayaal markana ku soo dhawaada heesta caasho uu qaadayo fanaanka Dayax Dal Nuurshe oo igu martiya barnaamijka fanka iyo suugaanta ka bogasho wacan.
عاشبها حبلها إذا عينك كدقن عبايها نقول دايو